ninkan ayaa ku dhuuntay taayirka ama lugta diyaaradda American Airlines oo ku jirtay duulimaad 2 saacadood waxa uu naftiisa khatar u geliyay si uu u galo dalka Mareykanka isagoo ku sigtay inuu ku geeriyoodo jawiga aadka u qabow ee hawada sare oo ay diyaaraddu samada u gashay 11,000 mitir. inta badan dadka isku qariya taayirka diyaaraddu ma badbaadaan waana naadir in meydkooda la helo. nasiib wanaagse waxa uu ninkani si nabdoon ku tagay dalkii uu doonayay ee Mareykanka. goortii diyaaraddu ay cagadhigatay garoonka magaalada Miami ee gobolka Florida 10kii subaxnimo ee xilliga USA, shaqaalaha diyaaradda American Airlines ayaa ku baraarugay kolkii ninkan uu si lama filaan uga soo baxay taayirka diyaaradda isagoo xaaladiisa caafimaad ay aad u adag tahay. waxa uu u muuqday qof dawaqsan oo daalan markii uu fadhiistay bartamaha laamiga garoonka Miami. shaqaalaha diyaaradda oo si bini'aadantinimo leh ugu soo gurmaday ayaa siiyay biyo uu isku dejiyo, waxaase si degdeg u qaatay ciidamada ammaanka. hay'adda kastamada iyo ilaalinta xuduudaha Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CBP ayaa xaqiijisay in ninkani yahay 26 jir u dhashay dalka ku yaal bartamaha qaaradda Amerika ee Guatemala, kaasoo ka soo booday derbiga garoonka kadibna si dhuumasho leh u galay godka taayirka diyaaradda American Airlines oo xilliga rikaabkeedu ay fuulayeen. saraakiisha gaaf wareegta xuduudaha Mareykanka waaxdooda ku sugan garoonka caalamiga ee Miami ayaa gacanta ku dhigay nin 26 jir oo isku dayay inuu ka baxsado garoonka maadaama uu si sharci darro ku soo galay dalka Mareykanka isagoo isku soo qariyay lugta diyaarad ka timi Guatemala, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kastamada CBP. ninkan dhalinyarada oo ay ka go'an tahay inuu ku noolaado nolol ka wanaagsan tan looga nool yahay dalkiisa hooyo ayaa 4 sano ka hor waxa uu gudaha u galay dalka Mareykanka markii ugu horeysay, waxaase dawladdu ay diiday inay magangelyo siiso iyadoo sanadkii 2019 lagu daray ajaanibtii loo tarxiilayay dalalkooda. haddana waa kan 2 sano kadib xeelad ku soo galay halkii laga dhoofiyay. duuliyaha American Airlines ayaa sheegay in duulimaadkii 1182 uu ku dhamaaday Florida wax yar kadib 10kii subaxnimo ee waqtiga maxalliga. saboolnimada gaamurtay ee haysata waddanka Guatemala iyo kooxaha rabshadaha abuura oo ku batay dalkan ayaa la aaminsan yahay inay dadkooda ku khasbayaan inay naftooda halis ku geliyaan tahriibka. 1.7 milyan oo muhaajiriin oo ay qabteen wakiilada xuduudaha Mareykanka sanadihii la soo dhaafay ayaa ahaa reer Guatemala. kumanaan kale ayaana si aan sharci ahayn ku galay dalkan. in lagu dhuunto taayirka diyaaradaha ayaa noqotay xeelad bilaa damaanad oo dadka aan sharciga haysan qaarkood ay door bidaan tan iyo sanadkii 1947 oo ay soo bilaabatay qariska tuurnimadani. 130 ruux ayaa isku dayay inay taayirka diyaaradda hoosta ka galaan oo ay ku safraan. 100 ka mid ah socdaalku intuusan dhammaan ayay geeriyoodeen halka ay badbaadeen 30 qof oo ku jiro ninka reer Guatemala. 2014 ayaa la xasuustaa in wiil Soomaali oo ku dhuuntay taayirka diyaaradda uu nabad tegay dalka Mareykanka kadib duulimaad toos oo qaatay 5 saacadood. 2015 waxa la diiwaan geliyay in diyaarad u kala gooshaysay Koonfur Afrika iyo Ingiriiska ay taayirkeeda ku hoos dhuunteen 2 wiil oo saaxiibo midkood ayaa geeriyooday markaasoo uu ku soo dhacay saqafka sare ee dukaan ku yaala galbeedka London, halka kii kalena la daweeyay oo magangelyo la siiyay. ilaa goormee noqon doontaa ma liibaanihii lagu liibaanay? haddaba iga hoofuraha guushii aad muddada goobaysay. haddaa hami laheedoo han iyo higsigaagu yahay haldoor ganacsiga ku tegay, ha yeeshee aan u helin fursad hadafkuu lahaa, waxaan kuu hayaa hindisaha dhabta higsiga ku siin lahaa hiil Forever Living Product. haddaba waxaa jira habraac annaan laga rabo qofkii hayaan raba guula dhala, ma tahay qaangaar hanloo hufnaan lagu hubo habsami, bulshada ruux ku haysta sharaf, quluub hanan kara mug weyn, hortabinta aan sharaxay haddaa tahay ruuxantiyay. Forever Living baa hubaalhankaaga dhabaynayse ku hiro oo hore u gaar dhaqsaad noqon ruux xudmo weliba maalqabeenta dhahay ee haddaba iska diiwaan geli Forever Living Product oo aad ka mid noqon karto adoo jooga meel kasta oo daafaha caalamka. diiwaangelintu waa lacag la'aan, waxaad dalban kartaa badeecooyinka tayada leh ee shirkaddu ay soo saarto. dalabka ugu fiican ee darajada koobaadna waa 380 ama $500. haddaba kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.